gobolka Sanaag waxa uu kamid ahaa goboladii ugu horeeyay ee qaata aqoonsiga gobolnimo wuxuuna ahaa gobolkii labaad ee ugu baaxadda weynaa dawladihii la isku oran jiray Soomaaliya. gobolka Sanaag oo waqtigan ah 40% baaxadda dhulka Somaliland waxa soo maray 4 xukuumadood oo kala dambeeyay oo mid waliba wax qabado kala duwan iyo astaamo kala gedgedisan ay ugu suntan tahay gobolka. Sanaag waa gobolka ugu kheyraadka badan Somaliland waxana uu leeyahay dhul beereedyo waaweyn oo ay ka baxaan dalagyo kala duwan sida beeyada, xabkaha iyo falaanka iyo waliba badda cas oo iyana kaga dheereeran dhinaca waqooyi dhul buuraley ah iyo banaan cagaaran. waxa uu dhacaa bariga dalka Somaliland waxa uu ka kooban yahay 6 degmo oo waaweyn iyo 5 degmo oo yaryar. sidoo kale Sanaag waxa intaas u dheer dhul dalxiiseed aad u qurux iyo bilix badan oo ay ka mid tahay buuraleyda Daalo, deegaanka Gudma Biyacaas iyo dhul beereedada Dayaxa Madhisho iyo waliba Xalmadow. waana gobolka dhinaca kheyraadka dabiiciga ah ugu badan dalkeena Somaliland. sidoo kale waa gobolkii awoowayaasha ee inta badan ay ummadda Somaliland ka soo farcantay. intii ay jirtay Somaliland guud ahaan gobolada bariga gaar ahaan gobolka Sanaag waxa uu ahaa mid ka dambeeya gobolada kale dalka marka loo eego dhinacyada arrimaha bulshada, horumarka, ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo kaabayaasha kale ee nolosha. waxa weeye gabigiisu uu curyaansanaa waxbarashadu ka curyaansanaa dhakhtar xagga caafimaadku ka curyaansanaa hadii la leeyahay horumarinta kale bulshadu ka curyaansanaa. waxa intaas u dheer go'doonkii dhinaca wadada ee gobolka baaxadda weyn ee Somaliland waxa uu ahaa mid go'doon nololeed kaga jiray guud ahaanba gobolada kale ee Somaliland. waxayna go'doonkaas dhinaca wadada Sanaag ay u keentay in gobollo kale oo ay ka hor qaadatay gobolnimadu kaga horumaraan dhinaca arrimaha bulshada iyo horumarka. degmo cadilan bay ahayd ama gobol cadilan. wadalaantii haysatay gobolka Sanaag ayaa loo aanaynayaa dib u dhaca dhinacyada amniga, tayalaanta waxbarashada, baahida caafimaad, hoos u dhaca dhinaca dhaqaalaha, horumar la'aanta kale ee bulshadu la daala dhacaysay inay sabab u ahayd. inkastoo ay jiraan daliilo la saaro xukuumadihii hore oo qudhooda la sheego inaanay dadaal badan iyo juhdi gelin jirin inay reer Sanaag ka caawiyaan inay la tartamaan gobolada kale dalka. يعني وحو أها قول كاسي قول آد هنتي قوضون أو تروفتيسو يعني إلهي قياس كرو سدا أوجد دولته كلا دبيي يجوه رئيسي دولة إنجليز كي قميستاهيد إلى قميسي شتي يدوائل كي شعب كأها الصومالية يدولة الملتري السياد برا يدولته كلا كهريي دولة مانتا هذا ترى ذلك هيسا الصوماليلان waxay ku dhici waayeen ay tahli waayeen in dalka gobolkaas wado loo sameeyo. dadka ka soo safraya gobolka Sanaag iyo kuwa u safraya gobolkuba waxay ahaayeen kuwa dib badan ka mara socodka wada xumaantii gobolka haysatay awgeed. aad ayayna dadka ugu adkaan jirtay inay ku dhiiradaan in ay u safraan ama ka soo safraan gobolka Sanaag ayna maraan wadadii dibta badnayd ee gobolka go'doonka gelisay. mararka qaarna waxay door bidi jireen inay dhinaca iyo Soomaaliya u safraan oo xoogaa ka wada sahlanayd wadada gobolka ku xidhaysay qaybaha kale ee dalka. dadka beeralayda ah waaba ka qanceen in ay wax beertaan sababtu tahay dhinacii transportation-ka markay saadaan burcageeya intay jidka sii socdaan bay khaayisaysaa. siitaasi lamida bulshada gobolka Sanaag waxay ahaayeen kuwa aad uga hooseeya dhinaca caafimaadka mana shaqayn jirin inta badan ba isbitaalada degmooyinka shanta ee gobolka. sidoo kalena ma aysan jirin isbitaalo gaar loo leeyahay oo adeegyo caafimaad u sameeya bulshada. taasi bedelkeeda bukaanka reer Sanaag waxay u soo daaweyn caafimaad doonan jireen gobolada galbeedka Somaliland ama magaalooyinka kale ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo uu gobolku dhinaca bariga iyo badaba xuduud kala leeyahay. kaaga daranay xitaa ambalaasku aanu ahay mid ku haboon taasoo keeni jirtay marka inuu patientku xitaa marka qaar dhexdiisa inuu dhaawac ku galo ama uu ku dhintaba. dhinaca waxbarashada laftarkeeda gobolku waxa uu ahaa gobolka ugu hooseeya dalka. magaalada caasimadda ah ee Cerigabo iyo labada degmo ee baaxadda weyn ee Garadag iyo Ceelaf Weynba waxa ay baaxad ahaan ka weyn yihiin
gobolka Maroodi Jeex waxaana ku nool qiyaas ahaan dad ka badan 40,000 oo qof haddana ma aysan lahayn dugsi sare oo la isku halayn karo waxay wadaagi jireen oo tayo bidi jireen hal dugsi sare oo ku yaalay magaalada Cerigabo dhinaca tayada waxbarashaduna waxay ahayd mid aad u hooseysa halka tuulooyinkana dhirta hoostiisa wax lagu baran jiray meelaha qaarna aanay lahaynba goobo waxbarasho markii hore waxa lagu dhigan jiray iskuulkan hadda aynu joogno iskuulkan waxa lagu dhigan jiray geedkaas lagu dhigay ciyaalka lagu dhigay geedka quraacaba wax lagu dhigay nolosha dadka reer Sanaag waxay ahayd mid aad u hooseysa dhinaca ganacsiga iyo dhaqaaluhuna wuxuu ahaa mid aad u liita wuxuuna gobolka Sanaag go'doon ku jiray 30 sanadood ee dawladda Soomaalida iyo 19 sanadood ee Soomaaliland u kala dambeeyeen xukuumadihii madaxweyne Tuur Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal iyo madaxweyne Daahir Riyaale Kaahine waxa weeye xukuumadda badan baan u soo taagnayn oo aanu joognay halka waxa weeye Soomaalidu kulley ma ay qirto waxa jira annagu haddaan reer Cerigaaban nahay xukuumadii ka horeeyay xukuumadda Siilaanyo ma ay soo gaari jirin Sanaag laakiin waxa weeye wadadayada waxaynu ahaan jirtay wado go'an oo aan lahayn meel loo maro oo qofku aad iyo aad uga dhibaatoodo marka ay dani ka gasho dhulka riyadii rumowday ee dhismaha wadada Cerigabo waxay ahayd mid la kowsatay asaaskii xisbiga kulmiye waxaana ay safafka hore kaga jirtay barnaamijkii hogaaminta talada dalka ku hantay Axmed Siilaanyo waqtigii uu mucaaradka ahaa tan iyo waagaas madaxweynaha maankiisa waxa ku jiray hirgelinta riyadaasi ugu dambeynna waxa uu noqday hogaamiyihii rumeeyay raja ay tahli waayeen dawladihii dalka ka soo arrimin jiray dhismaha wadada weyn ee Cerigabo Burco oo dhererkeedu dhan yahay 300 kilomitir wax ku dhow waxa hindisaheeda uu ka soo bilaabmay xilligii xisbiga kulmiye oo mucaaradka ahaa ee ku jiray ololaha waxaana sida cid waliba ogtahay lagu daray barnaamijka xisbiga kulmiye waxay ahayd aragti hogaamiyaha xisbiga kulmiye oo imkana madaxweynaha Soomaaliland uu beriga iyo xisbiga kulmiye uu bilaabay waxa aan xasuustaa 2008 annagoo la shirayna wax garad iyo waayeel reer Sanaaga oo aanu xisbiga kulmiye nahay in madaxweynuhu u ballan qaaday xilligaa soo gudoomiye xisbiga inuu jidka weyn inta leeg u babac dhigi doono hadii uu ku guuleysto talada dalka وانا وطمامي واكون لك شيكيني واكون كل قبله قلبك كله هديت ودرانتا ومشى رسومهم ودوي كقرك ما هو الحزب كبريين ما له كفايه كبريين وحاول يكبر قالنا ان انا حدي له نقتل دريو ولا يبقى الى روح طريقه السوق isbedelkii dalka ka dhacay bartamihii sanadii 2010 kadib reer Sanaag waxa uu bariyay waa cusub oo aanay marnaba filaynin markaad la sheekaysatana waa kuwa aad uga waramayay isbedelkii dhacay 7 sano ee kulmiye haysatay waxa gobolka Sanaag aad uga soo baxay wax qabad تعميركي بس كورداي ganacsigii baa soo kordhay wax badan bay dabada ku haysaa runtii aad iyo aad u sahlan waxa la xusi karaa in marka hore gobolku go'doon ahaa uu go'doon ku jiray haday xaq siyaasadeed tahay haday xaq dhaqaale tahay iyo xaq horumar tahay markii wadadaas la helay waxa noo fududaatay ama waxa noo sahlanaatay inaan dalka intiisii kala ku xidho waxa isbedelay dhaqaalaha waxa qaaliyoobay dhulka ku yaala waxa ballaadhay ganacsigeeda waxa hore maray dadka soo degaya baabatay madaxweyne Siilaanyo oo 16 bishii September sanadii 2013 waxa uu qaatay go'aan taariikhi ah oo ay ku dhiiran waayeen hogaamiyayaal hore nasiibku siiyay hanashada kursiga waxana uu dhagax dhigay dhismaha wadada Cerigabo taasoo noqotay qafil adag oo madaxweynuhu ka jabiyay gobolkii go'doonka ee Sanaag olole ballaaran oo lagu hirgelinayo in la rumeeyo riyadii madaxweyne Siilaanyo ee ahayd in uu go'doonka ka saaro reer Sanaag waxana la bilaabay dhismaha wadada Cerigabo oo la hirgeliyay 70% dhismihii wadada oo inta badan ilaami tahay inta soo haydhayna ay jay isku xiriirsan tahay sidaas ayuuna kaga furmay dabarkii ku xidhnaa reer Sanaag muddada ka sano ku dhow ilaa Ingiriis waxa aabahay oran jiray laamiga ahmadna loo sameynaya tii aadan cadii oran jiray
tii cabdirashiid buu odhan jiray tii maxamed siyaad barruu odhan jiray teena tan intii aynu qabsannay maalin walba waxaanu lahayn war ballaami doona ninna waa ku dhici waaye waxaa ku dhacay oo ilaah la qabtay siilaanyo ku dhiirashadu waxa weeye wax qabad dhammaystiran wadadii maanta way shaqaynaysaa oo way soconaysaa wax soo saarkii gobolku uu furan yahay gobolku wuxuu noqday gobol open economy oo dhaqaalihiisii waxa halkan laga soo saaro burca kaabashkii gobolka la geenayaa berbera la geenayaa hargeysa la geenayaa gobolkan wax soo saar fara badan wuxuu yahay gobol applicable ku ah in wax lagala soo baxo laga dhex shaqaysto boqolkiiba 39 badka jamhuuriyadda Soomaaliland waa gobolka Sanaag gobolkii sida ahaa oo xidhnaa mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo xukuumaddiisu waxay ka dhigtay gobol furan oo shaqaynaya maanta iyo maalintii muxuu ahaayay anigu aan secondary-ga ahaa kala niyad baan ahay kala niyaayuran ahay kala farxad baan ahay haddii aad hore u mari jirtay waxaad dareemaysaa isbeddelka weyn ee ku tusaya inaad booqanaysid Sanaag ka duwan Sanaagtii 2010 ee lahayd muuqaalka qorfaha wehelkana u ahayd wadaxumada iyo go'doonka ka reebay gobolada dalka himilo raagtay iyo dadaal tacabkiisu ku isran yahay hogaamiyaha maanta Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa unkay hirgelinta dhismaha dawga Cerigabo siday ku sheegayaan reer Cerigabo safar qaadanayay hal maalin iyo waliba ka badan oo ay dheerayd rafaadka dheedhiga roobka ayay ku qaadan jirtay baabuurta u kala gooshaysa labada magaalo Cerigabo iyo Burco sidaas la mid ah wax ka yar 5 saacadood ayaa hadda loo kala socdaa labadii magaalo ee ku dhawaad 24 saacadood loo kala safri jiray Burco Cerigabo waa 300 kilomitir hawl fudud ma aha hawl aad u culus in badan baa laga qabtay haddeerna waa lagu leeyahay sababtu waxa weeye halkii laga socon jiray 8 saacadood 10 saacadood imika waa la socdaa 4 saacadood 5 saacadood wadada tani Siilaanyo road baa la yiraahdaa intii ka horeysay kulmiye magaalada Cerigabo go'doon bay ahayd waa la ogaa imikana nimba tacabkii tagay ka maaran waxa weeyaan maanta waa magaalada Hargeysa iyo Burco la jaan qaadaysa baan nahay dhismaha wadada Cerigabo waxa uu isku xidhay dalkii kala goonaa sidoo kalena waxa uu sahlay isku socodkii ganacsiga waxaana meesha ka baxday goobihii dalka ka baxsanaa ee reer Sanaag ka soo dukaamaysan jireen beeyada oo iyaduna ahayd khayraad aan aad loo manaafacaadsan jirin ayay dhismaha wadada Cerigabo saayaasha xisbiyada mucaaradka Somaliland ayaa iyaga qudhoodu la dhacsan waxqabadka xukuumadda ay ka geysatay gobolka Sanaag gaar ahaan dhismaha wadada Cerigabo ee lagu badhaaray wadada in la sameeyo runtii madaxweynaha waa ku bogaadinaynaa in la bilaabayna waa ku bogaadinaynaa maanta wadada way irmaanaatay berigii hore aan tagay 18 jeer baan tagay hadda jeer kan ku noqday marka maanta wadadii markaan socda aan gaariga hor iman jirin maanta waxay noqotay highway baabuurtii bari ka timi Cerigabo ka timi iyo kuwii ka tagay Soomaaliland in Burco ka tagay ayaa isdhaafiya way irmaanaatay waxaa bilaabmay maalmihii horumarka oo ay sahashay wadadu waxaana kordhay tirada dadka u kala safraya Sanaag iyo Somaliland inteeda kale waxaana koboc ku yimi ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo kor u soo kaca horumarka gobolada Sanaag halka tuulooyinka yaryarina ay magaaloobeen wadadaas loo sameeyay ay ku xirantay dalka intiis kale ayaa waxay keentay in degmadu ay nolosheeda oo dhan kaabayaasha dhaqaalaha iyo nolosha arrimaha bulshada oo dhan ay kor u kacaan waxay u lahayd structure degmo ahaan way u taagnayd runtii مدن ومركز كسوكو شوف عمل سبيل انتي حكومة mashruuca wadada Cerigabo oo ahaa kii ugu weynaa ee laga fuliyay gudaha dalka Somaliland 7 sanadood ee madaxweyne Siilaanyo xilka hayay ayaa intii uu socday waxa barbar socday kor u soo qaadista dhinaca waxbarashada ee gobolka Sanaag waxaana la hirgeliyay in ka badan 200 oo iskuul oo isugu jira dugsi hoose kuwa dhexe kuwa sare iyo waliba sidoo kale waxa laga sameeyay 3 jaamacadood oo gobolka ka shaqeeya ayna ka mid tahay jaamacadda weyn ee dawladda ee Sanaag University goobaha waxbarasho macallimiintooda iyo qalabkoodiba way dhamaystiran yihiin waxa weeye wasaaradda tacliinta kale iskuulo badan ayaa dhisay ama ha noqoto dibad tuulooyinka dibad ama ha noqoto gudaha magaalo 3 jaamacadood baa leedahay jaamacad gobolku ma lahayn gobolka jaamacad baa ka qabsoontay jaamacaddii way shaqaysaa iminka
maxay ahayd billahi alxamdu in dadkii meelaha fogfog wuxuu caruurta u geysay jireen markay secretary ka baxaan iyaanu halkaa waxayna ku suntan yahay waxqabadka maxamed maxamed Siilaan dayaxaana loo dhisay dii allaba leeyahay jaamacadii baa naloo dhisay sidoo kalena waxaa kor u qaadmay tayadii waxbarashada ardayda oo keentay inay sanadadii ugu dambeysay sanaha kaalmaha hore ka soo gaadho imtixaanaadka shahaadiga ah sidoo kalena lodkii ugu horreeyay ayaa ka qalan jabiyay jaamacadaha gobolka waxa kale oo iyana gobolka laga hirgeliyay xarumo caafimaad oo wax weyn ka taray safarkii bukaanku u geli jiray baadigoobka bogsiino waxaana meesha ka baxay in loo dabiib doonto gobolada kale ee dalka sidoo kale goobaha la hirgeliyay waxa ka mid ah isbitaalka weyn ee magaalada Ceregaabo oo noqotay xarun midaysa goobaha kale caafimaad loona soo gudbiyo xaaladda ay fardaamin kari waayaan rugaha degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka waqtigana xarumaha caafimaad ee gobolku waxay 80% buuxiyeen baahiyii caafimaad ee gobolka isbitaalku wuxuu shaqeynayaa standardkii ugu wanaagsanaa runtii waa markii ugu horreysay gobolka Sanaag laga helo 8 dhakhtar oo isbitaalka guud ka shaqeynaya runtii oo waliba afar ay tahay dhakhaatiir expertia dhinaca biyaha gobolku aad ayuu uga liitay deegaamada qaarna ma aanay lahayn ceelal biyood iyo riigag waxa loo sameeyay 161 xarumood oo isugu jira riigag ceelal dhaamam iyo baraago sidoo kalena waxa magaalooyinka waaweyn oo aanay ku jirin ceelaf weyn loo sameeyay biyagelin halka ceelaf weynna loo sameeyay dhaam weyn oo loogu talagalay in magaaladu waraabiyo oo hadda dhismihiisa gacanta lagu hayo waxaana halkaasi meesha ka baxday baahidii joogtada ahayd ee biyaha goobaha dawladdu samaysayna waxa ay wax weyn ka tareen abaarihii dhawaan dalka ka dhacay oo haddii aanay jiri lahayn lagu leeli lahaa dhinaca beeraha gobolka Sanaag waxa uu leeyahay dhulka beeraha ugu baaxadda badan dalka hadda ka horna bulshadiisu dadaal may gelin jirin dhinaca beeraha maadaama aanay jirin wax soo saarka ay sameeyaan meel ay u iibgeeyaan kuna adkayd inay suuq u helaan dalagooda kadib dhismihii wadada Ceregaabo waxa mar qura isbedelay barnaamijkii beeraha ee gobolkaasi oo keenay in reer Sanaag u jeestaan dhinacii wax soo saarka waxayna 30% ku guuleysteen inay wax soo saarkooda gaarsiiyaan gobolada kale ee Togdheer iyo Maroodi Jeex oo laga isticmaalo khudaarta laga keeno dalka Itoobiya dadaalka reer Sanaag keenay ee dhinaca beeraha ee ay wadadu fududeysay waxay sahli kartaa inay meesha ka baxaan khudaarta qalaad ee dalka laga isticmaalo wadada Ceregaabo iyo Burco isku xidha waxay wax badan fududeysay oo u sahashay dadka beeralayaasha ee beerashatada ee wax ka beera gobolka Sanaag iyo guud ahaan degmada Ceregaabo inay suuq u helaan wax soo saarkooda ay soo saarayeen isla markaasna waxay u fududeysay waxyaalaha loo yaqaan storage iyo transportation haddii aan ka hadlo storage iyo transportation kuwa kaydkii oo waxa dhici jirtay muddadii aan wadada jirin in khudradda laga soo guro mirsho ama dayaxa ama goob ama kulmiye marka la soo guro la soo storage la soo sameeyo karatoon ama weelkii lagu sida lagu soo guro intay wadada sii socotay Burco lagu sii sido inay dhexda ku sii baabi'i jirtay ama aanay gaari jirin halkii loogu talagalay isbedelka nololeed ee ka soo iftiimay gobolka Sanaag ayaa noqday mid si weyn looga dareemay guud ahaan dalka hadalhaynta ugu badanina waa go'doonkii laga saaray gobolkii lagu guuleystay madaxweyne Siilaan iyo xukuumaddiisa ayaa iba fur noqday horumar nololeed mid waxbarasho caafimaad iyo deegaan oo ka tis qaada gobolka Sanaag dib u dhacaas gobolku la daalaa-dhacayay waxa uu dheeraa go'doon kale uu gobolku kaga jiray dhinaca hay'adaha deeq bixiyayaasha ah oon haba yaraatee ka howlgeli jirin gobolka Sanaag oo loogu sheegay inuu yahay gobol lagu muransan yahay ama waxa reer galbeedku ugu yeedhaan conflict area balse xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaan ayaa ku guuleysatay in gobolka laga saaro go'doonkaas waxaana markii ugu horreeyay ka howlgalay boqolaal hay'ado caalami ah oo waxqabad badan ka geystay caawimooyin badan u fidiyay reer Sanaag si la mid ah sida ay gobolada kale uga howlgalaan ee dalka waxa la xasuustaa in kontomeeyaha hay'adooda waaweyn ay ka qayb qaadanayeen gurmadkii abaaraha ee dhawaan loo fidinayay dadka abaaruhu halakeeyeen ee gobolka Sanaag dhinaca kale marka aad gaadho magaalada Ceregaabo waxaad halacsanaysaa isbedelka iyo horumarka ka muuqda magaalada guud ahaanba waxa isbedelay bilicdii magaalada oo ay qurux u horseeday ku dhawaad wadooyin 20 kiiloomitir ah oo magaalada dhexdeeda teedsan Ceregaabo waxa laga dareemayaa isbedelka dhinaca nolosha bilicda magaalada waxayna 58 sanadood kadib yeelatay muuqaal u eg magaalooyinka waaweyn ee dalka sida Hargeysa iyo Burco
Ceerigaabo gudaheeda waxa ka hirgalay mashaariic aad u tiro badan oo aan la soo koobi karin balse haddii aan ka xusno waxa Ceerigaabo laga hirgeliyay intii ay xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaanyo talada dalka haysay wadooyin magaalada gudaheeda dhex mara oo laamiya oo aanay Ceerigaabo hore u lahaan jirin wadooyinka magaalada laga dhisay ayaa waxay sahleen inay yimaadaan gaadiidka raaxada sida fitista iyo gaadiidka yaryar ee raaxada hore magaalada Ceerigaabo wax ka yar gawaarida four wheel drive-ka ahi kuma dhex socon jirineen balse hadda sida caasimadaha kale ayay yeelatay gaadiid yaryar oo ay ugu yar tahay bajaajta oo iyadu bulshada u adeegta waxay keentay runtii gawaarida faraha badan ma joogin meesha oo intii bay timi isla markiiba ma socon kari jirin gawaarida gaagaaban ma socon jirin bajaajta waxa ay leeyihiin ma socon jirin bishii September ee sanadii 2013 oo markaasi xukuumadda madaxweynuhu ku jirtay labadii sano ee ka soo kabashada deymihii hore ee xukuumadii ay talada kala wareegtay Sanaag waxay u ahayd diba furka horumarka waxana banka Somaliland soo saaray xilligaasi go'aan gobolkaasi lagaga bedelayo lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd oo laga isticmaali jiray intii ka horeysay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga oo halbeega kor u kaca iyo hoos u dhaceeduba ku xirnaa suuqyada wax kala iibsiga ee Xamar iyo Boosaaso lana gabi dhaclaynayay hadba marxaladihii soo wajaha taasoo bulshada Sanaag wehel u ahayd sixir bararka iyo kor u kaca maciishada xukuumadda madaxweyne Siilaanyo waxay ku guuleysatay inay dadaal dheer kadib ka hirgeliso guud ahaan gobolka lacagta shilinka Soomaaliland taasoo meesha ka saartay lacagtii Soomaaliga ee u badnayd faalisada waxyaabaha gobolka dhinaca dhaqaalaha hadii aynu ka eegno la qabtay waxa kamid ah lacagtii oo laga bedelay gobolkan lacag markii hore ragaadisay oo tii Soomaaliya ahayd oo waraaq ahayd oo jiri jirtay waa laga bedelay waxa lagu bedelay lacagta Jamhuuriyadda Soomaaliland ay gaar u leedahay khaas u leedahay oo qarankani leeyahay lacagtii qarankan baa maanta ka dhex shaqeysa xukuumadii hore intay jireen waxaa Sanaag 20 sanadood kadib ay isticmaashay lacagtii dalka waxayna ka xorowday lacagtii dawladii madax bannaanideeda lagala soo noqday ee wali ku sii harsanayd gobolka Ceerigaabo waxa laga hirgeliyay sidoo kale markii ugu horeysay dhismayaasha wasaaradaha dalka waxana xusid mudan inaanay hore xarumo ugu lahayn inta badan ba wasaaraduhu marka laga reebo dhismaha bangiga dhexe intii xukuumaddu jirtay waxa dhismayaal iyo xafiisyo qalabaysan ku yeeshay wasaaradaha qorsheynta deegaanka maaliyadda shaqada caafimaadka xanaanada xoolaha iyo waliba xafiiska guud ee ciidamada nabad sugidda qaranka dhismahan xafiisyada dawladda ka jira magaalada madaxda intooda badan waxa la dhisay ilaa waqtigii 7 sanadood intii uu hayay xilka madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud sidoo kale waxa Ceerigaabo markii ugu horeysay looga hirgeliyay cisbitaal aad u baaxad weyn oo la jaan qaaday cisbitaalada kale ee dalka Ceerigaabo ayaa cisbitaalkeeda albaabada loo laabay kadib markii ay isaga baxday hay'adii maamulka cisbitaalka gacanta ku haysay ee MSF waxa dadaal badan gelisay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo oo dib u furtay cisbitaal aan lahayn wax dhakhtar ah dhismayaal ku filan qalab iyo waliba daawooyin waxaana ugu horeyntii la dumiyay inta badan waadhar duug ahaa oo dawladii burburtay ee siyaad bare ka dhistay magaalada bartamihii 70meeyadii waxa la keenay qalab casri ah dhaqaatiir aqoon leh iyo waliba maamul wax badan ka qabtay baahidii caafimaad ee gobolka wuxuuna cisbitaalku hadda meesha ka saaray socdaaladii loo geli jiray caafimaadka wuxuuna fuliyay qaliimo lamid ah kuwa caasimada lagu sameeyo dhisma ahaan waxa uu la mid yahay amaba ka casriyeysan yahay cisbitaalada kale waaweyn ee dalka guud ahaan gobolka ayaa waxa ka hawlgali jiray 93 hawlwadeen caafimaad oo kaliya hase yeeshee hadda waxa ka hawlgalay 196 shaqaale caafimaad taas oo ka dhigaysa in laba jibaar in ka badan la kordhiyo shaqaalaha caafimaadka gobolka xarunta cisbitaalka degmada Ceerigaabo oo aanu booqanay ayaanu kula kulanay maamulkii dhaqaatiirta cisbitaalka oo nooga xog waramay sidoo ahaan jiray cisbitaalka Ceerigaabo wixii ka horeeyay sanadii 2010 markan cisbitaalka Ceerigaabo yimi ama gobolka eegay wuxuu ahaa 2010kii wix ka horeeyay waxay ahayd xaalad hay'ad loo dhan jiray MSF ayaa joogtay MSF markaa waxay sameysay inay ka baxdo markay ka baxday cisbitaalku wuxuu bilaabay inuu completely u noqdo mid xiran that's why markaa waxay noqotay programka wasaaradda caafimaadka inay sameyso team dhaqaatiira oo 6 bilood oo horeeyana cisbitaalka weyn Hargeysa lagu tababaro inta wixii ka dambeeyana loo diro gobolada meelaha aanay dhaqaatiirtu joogin markaan waxaan ku soo baxay oo kamid ah dhaqaatiirtii la soo diray
boolisiga wasaaradda caafimaadka loo soo diray dadka magaalada imaada isbitaalku muu lahayn dhakhaatiir ka shaqeysa oo ka howlgasha muu lahayn dad neeras oo aqoon-yahan oo jooga waqtigaanu nimi xaqiiqada marka laga hadlayo albaabadu way xidhnaayeen waqtigaas maamulo cusub la keenay isla waqtigaanu nimi aanu shaqada ka bilownayo dib u furmay maantana xaaladiisu waxay maraysaa meel aad iyo aad u fiican maxaa iska bedelay isbitaalka magaalada Cerigabo 5 sanadood ee ugu dambeysay isbitaalka xaaladiisuse sidee ayay ahayd haddase waa sidee waqti capacity-geedu uu ka sareeyo ama ka fiican yahay ma jirto waad aragtaan runtii annaga halkan waxa ka socota hadda mashaariicdaas 3 qaybood bay isugu jirtaa 3 qaybood waxa weeyaan building iyo capacity building wax la yiraahdo ama capacity system oo shaqaalaha iyo tayisiintooda iyo kor u qaadistooda sidoo kale waxa yana ka socda oo mashruuca ku jira qalabayn iyo daawo muddo 2 sano runtii loogu talagalay sida heshiiskaasi DF ku cad ama sanduuqa Somaliland Development Fund uu fulinayo buildingkii waad aragtaan oo boqolkiiba 80 wuu dhameystiran yahay boqolkiiba 20 xaal ayaa haray buildingka marka haddaan ku horeeyo wuxuu ka koobnaa new building iyo haddii laba ku roon yahay qaybo waxaan ku wararkii hore oo lagu sameynayo renovation sidoo kale waxa isna ka koobnaa qaybo oo noqday oo la duminayo yana new building laga kicinayay runtii haddii aan yar soo koobo meelaha ugu muhiimsan ee buildingada cusubna looga dhisay waxa kamid ah sida idinku aragteen buildingkan aan ku jiro compoundka ICU ba kamid ah ama intensive care unit-ki oo xaaladaha degdega loogu talagalay oo halkan si casri ah u dhisan waa markii ugu horreysay gobolka ka hirgalo sidoo kale waxa noogu jiray qaybta payment ward oo isaguna waxaan ku yiri qaybaad iyo aad muhiim ah waa markii ugu horreysay isbitaalka laga dhiso laga sameeyo blood bank runtii oo waxa weeyaan qaybtii laabka iyo blood bank labadaba la isku sidko sidoo kale iyana waxa meesha ku jirta qolyalka VAB da payment wardka iyo meel shaqaaluhu ku labistaan oo si standard u qalabaysan iyo waliba waxaan ku yiri qaybihii laundry-ga lagu meeyay compound dhan oo waxaan ku yiri department gaar ayaa loo dhisay qaybta hooyada iyo dhallaanku waxay ahayd dhibaatada ugu badan ee ka taagan gobolka dhakhaatiir la'aan iyo qaybaha dhalmada oo guud ahaanba gobolku aad ugu liitay ayaa halis gelin jiray nafaha hooyooyin badan waxa dhici jirtay in hooyooyinka oo hooyadiiyo foolanaysa haddii la doonana loogaba keenay annaga xaggan bariga oo kale ama tuulooyinka ku xeeran gobolka Sanaag ay halkan yimaadaan markay halkan yimaadaanna maxay ahayd aanu eegno hooyadaasi qalliin ha ahaato dhakhtar halka ma joogo dadna waxay noqotay in hooyadii la transfer gareeyo oo loo transfer gareeyo Burco ama Hargeysa iyadoo halka hooyooyin badani ay qaarkood baday halka ku sii dhiman jireen dadna iyadoo xaaladdu halka marayso wax badan baa isbedelay dhakhaatiir baa noo timi markay dhakhaatiirtii noo timi xitaa shaqaalihii oo lagu soo badiyay maxay ahayd maternity-ga qualified-ka ay shahaadooyinka sitay dadna halka waxa istaagay hooyadii la qaadayay loo transfer gareynayay loo qaadayay Burco ama Hargeysa haday doonto jidka ku sii dhimanaysa way yaraatay dhammaan wixii ay u baahnaayeen hooyooyinka oo dhan waxa loogu qabtay halkan gudaheeda cusbitaalka gudaheeda hooyada hadii qalliin tahay hooyadii hadii maxay dib kala haysato intiiba waxay ka heshay adeeg iyo dhameystiran hooyadii waxay ka heshay cusbitaalka dhexdiisa ayay ka heshay Cerigabo dhinaca waxbarashada waxay ahayd magaalooyinka natiijo ahaan ugu hooseeya qiimeynta imtixaanaadka hal dugsi sare oo kaliya ayaa ku yaalay gudaha magaalada xilligan waxa Cerigabo ka tisqaaday waxbarasho tayo leh oo u muuqata in xukuumadda maanta joogta tacab badan gelisay marka loo eego halkii ay shalay taagneed waxaana gudaha magaalada Cerigabo ka furan 12 dugsi sare Cerigabo oo 35 bare ka howlgali jireen waxa nasiib ku siiyay 140 macallin oo aqoontooda ay dheer tahay tababarada iyo taageerada xukuumadda taasoo la oran karo 100% waxa kor u kacay waxbarashada dugsiyada sare ee degmada imika 3 sano 4 sano dambeysay waxa weeye iskuulku si caadi ah u socday macallimiinta ka dhigtaa waxa weeye waa 25 macallin iyadoo markii hore macallimiin laba heli jirin imika waxa weeye aad bay ugu filan tahay macallimiintu Cerigabo waxay markii ugu horeysay yeelatay 3 jaamacadood
oo buuxiyey baahidii jaamacadaha ee Hargeysa iyo Camuud ardayda reer Cerigaba u tagi jireen. Madaxweyne Siilaanyo ayaa mar kale ku dhiiraday inuu jaamacadii qaranka ee gobolka dhagax dhigo, dhiso, welibana hirgeliyo baahi kale oo uu gobolku qabay. wuxuuna ku guuleystay inuu reer Sanaag markii ugu horeysay indhaha u saaro jaamacad qaran oo ku taala gobolkooda. Sidoo kale jaamacadihii kale ee dalka ayay tallaabadani ku dhiirisay in Laamo ay ka furtaan magaalada, wuxuuna hadda gobolku leeyahay 3 jaamacadood oo dufcadihii ugu horeeyay ay ka qalin jabiyeen. Cerigaba sidoo kale muddada 7 sano waxay heshay dugsi waxbarasho ah boodhanka ugu weynaa dalka ayna wax ku baran doonaan wiilal iyo hablo, kaasoo xilligan dhisme casri ah ku socdo ayna ku baxayso lacag gaadhaysa 1,500,000 oo dollar kuna yaala deegaanka beeralayda Dayaxa oo ka tirsan degmada Cerigaba. dhismaha maanta halkan ka muuqda waxa weeye wuxuu ka kooban yahay 45 dhisme. 45 ka dhisme waxay isku jiraan qayb dayactira iyo qaybo badan oo iyaga laga soo qaaday seeska laga soo qaaday macnihi cusub. wuxuu qaybsamaa guryaha hooyiga u noqon doona ardayda oo rag iyo dumar kala ah ama habliyeenamo kala ah. kalaasadoodii ay wax ka baranayeen, kitchenkii iyo halkii caafimaadkooga meel iyaduna waxa jirta loogu talagalay carruurta daryeelka caafimaadkooga. waxaa intaa raaca dhismayaasha halkii carruurta laatireenadoodii iyo dhulkay dharka ku meedhanayeen iyagana in martaba waxyaalihii halkaa yaalay ee sariir ama bedsheets halkii lagu meedhi lahaa. dadka deegaanka ayaa dhankooda ka waramaya horumarka Dayaxa iyo hirgelinta dugsiga Dayaxa. wuxuu iskuulka Dayaxa hirgelinaya oo siinaya reer Sanaag inay la tartamaan gobolada ay u socdaalayaan iyo kharashaadka ka baxaya reer Sanaag. maayarka Dayaxa Yuusuf Godor aanu la kulanay ayaa dhankiisa warbixin naga siiyay isbedelka Dayaxa sida ay ahayd Dayaxadii shalay iyo sida ay hadda tahay. waayo waxa weeye isma lahayn Dayaxa dib baa loo dhisaya. Dayaxi maanta Dayaxa noqotay waa taa Dayaxadii cusbayd maanta waanu aragnaa. dhul dalxiiseedka Daalana waxay ka mid tahay dhulka ugu bilicda badan ee Somaliland, gaar ahaan waxa la xusaynay Daala tahay goobta dalxiiska ugu quruxda badan Somaliland. dawladda Somaliland ayaa dhawaan madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo waxa uu amar ku bixiyay dib u dhirayn, iyadoo amarkii madaxweynaha la fulinayo ayay dawladdu waxay deegaanka Daalo ay ka samaysay ku dhawaad 30,000 oo geed oo ay ugu tala gashay in buurta iyo dhul dalxiiseedka Sanaag dib loogu qurxiyo. sida idin muuqatana waxa hadda biqlay oo tis qaaday ku dhawaad 30,000 oo geed oo ay wasaaradda deegaanka gobolka Sanaag gaar ahaan deegaanka Daalo ka hirgelisay. waxa halka kanaan joogay kaamkii Daalo Forest Camp waxa weeyaan halkii dhirta 30,000 ee geed lagu beeray oo sidii dib loogu soo celin lahaa mataqaanaa bilicda buurta khasaarayaashii dhirtii ka dabargooday ee dayibka dib loogu abuuri lahaa. taas oo waliba markii 18 May sanadka kan xuskii 18 May madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo amray in maalinta loo bedelo dhir beeris. dhirtii maalinta la riday halkii lagu riday oo ku hareerahayga dhirta hareerahayga taala oo ka mid ah 30,000 ee geed ee ku beeran buurta Daalo ay ka mid tahay oo kuwa hareerahayga ku yaala ee dhinaca degmooyinka xeebaha ee gobolka magaalo xeebeedada Xiis iyo Maydh ayay hore ugu adkayd in dhinaca kalluumaysiga ee kheyraadka badda ay ka faa'iideystaan, umana ay suurtagali jirin inay kalluunka si badqaba Cerigaba oo 90 kiiloomitir u jirta ay ku gaadhsiiyaan. balse hadda dawladda ayaa u samaysay qaboojiyayaal ama barafdhaliyayaal ka caawiya in kalluumaysatada xeebaha Sanaag si fudud ku gaadhsiiyaan kalluun nadiif ah gobolka intiisa kale. sidoo kale waxaa degmada Maydh laga hirgeliyay dhismaha dawladda hoose dugsi hoose dhexe xarunta wasaaradda kalluumaysiga ee gobolka. gaadhigii degmada iyo weliba gaadhi ambalaasa halka Xiisna laga dhisay dawladda hoose lana siiyey gaadhigii degmada iyo ambalaaskii caafimaadka. Yufle oo yana ka mid ah degmooyinka heerka labaad ee gobolka ayay iyadana dawladdu dhinaceeda waxay ka hirgelisay mashaariic ay ka mid yihiin xarun caafimaad, dugsi sare oo cusub iyo weliba kii hoose dhexe oo dib loo dhisay, waxaana la geeyey macallimiin iyo howlwadeenno caafimaad. saldhig booliis waxaa kale oo laga dhisay xaruntii dawladda hoose ee degmada.
gudmo biyacaas waxa iyana ay ka mid tahay degmooyinkii dhowaan uu saxeexay madaxweyne Siilaanyo waxaana gudmo biyacaas ay hore u ahay tuulo waxayse hadda noqotay degmo ay u dhammaystiran yihiin badiba adeegyadii arrimaha bulshada sida dugsi hoose dhexe oo laga dhisay guri martiyeed xarun caafimaad oo laga hirgeliyay cisbitaalkii TB-da oo sidoo kale laga dhisay sidoo kalena waxa la siiyay ambalaaska caafimaadka iyo gaari booliis muddo 14 sanadooda iyo ka hor oo maamuladii kala dambeeyay ay haysteen halka waxa uu ahayd xarun caafimaad health boska 14 sanadood markay health boss ahayd baa 2010kii dawladda tan madaxweynaha Axmed Maxamuud Siilaanyo ay ka dhigtay MCH kaas wuxuu ka shaqeeyaa dhowr program under 5 OBD over 5 delivery nutrition key qaybo noocaas sidoo kale 40 magaalo oo hoos taga degmada Cerigabo ayna kamid yihiin degmooyinka Karinta, Xidhxidh, Rugay, Xamaas, Dibgarax, Guryo Boholeed, Chamberka, Dhuurmadar, Ceeldadaable, Marawada, Midhisho, Derbi Xamuud, Daryeele, Cirshiida, Raqas, Dhoob, Daalo, Buq, Goob, Kulmiye iyo waliba Laanqaci ayaa dawladdu ka hirgelisay dhammaantoodba goobo waxbarasho iyo dugsiyo ku filan ardayda deegaanadaasi waxaana xusid mudan in goobahan dhammaantood aanay hore u lahayn wax dugsiyo waxbarasho marka laga reebo malcaamada quraanka ku dhigan jireen oo ku yaala dhirta hoostooda ama buulal iska wax u qabso ay samaysteen Cerigabada maanta waa magaalo isku filan oo laga haqabtiray baahiyaha waxbarashada caafimaadka iyo biyahaba tani waa degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag waxay maamushaa ku dhawaad 22 tuulo oo u gaadhay waxqabadka xukuumadda madaxweyne Siilaanyo waxa degmada Garadag laga hirgeliyay ku dhawaad 18 dugsi oo waxbarasho laba xarumo caafimaad ah 12 ceel biyood isugu jira Riigag iyo Baraago iyo waliba 4 aqal dadweynaha 3 saldhig waana markii ugu horeysay waxqabad inta leegay gaadho degmada Garadag waxaana hadda la jaan qaadaysaa degmooyinka kale ay isku faacayeen ee dalka Garadag wixii ka horeeyay sanadii 2010kii ma aysan lahayn xarun caafimaad xarun maamul saldhig ciidan magaaladuna waxay ahayd mid aad u kooban waxaana suurta gashay in waqtiga gudaha magaalada Garadag laga hirgeliyo xaruntii maamulka dawladda saldhigii ciidanka jeelkii yaraa ee degmada oo laga dhigay mid ka weyn kii hore isla markaasina la jaan qaadaya jeelasha waaweyn ee dalka laguna xidho maxaabiis gobol kala duwan laga keenay sidoo kale Garadag waxay heshay dugsigeedii sare oo dhismayaal lagu kordhiyay isla markaasina la tagiyay aqoontii iyo waliba xarun caafimaad oo wax weyn ka tartay baahidii dhinaca caafimaadka ee degmada iyo wada dheer oo 600 mitir oo iyadana magaalada dhexdeeda marta iyo waliba gaari ambalaasa sidoo kale Garadag dhinaca amniga waxay ahayd magaalo aan lahayn ciidan ku filan xarumo ammaan balse hadda waxay heshay saldhigii iyo waliba xarumo amni oo ay joogaan ciidamo magaalada ku filani Garadag sidoo kale waxa la siiyay gaarigii ciidanka oo ka haqabtiray isku gudubka dhinaca amniga degmada iyo dhismo weyn oo aqalka martida oo loogu talagalay inay degaan madaxda iyo waliba martida kale oo si weyn loo qalabeeyay laga qabtay dhinacyada waxbarashada caafimaadka waxa laga qabtay nabadgelyada waxyaalaha kale infrastructure-ka sida wadooyinka iyo meelaha kale dhismayaasha dawladda waxa la gaaray meelo fara badan oo outreach oo tuulooyinka ayaa lagu sameeyay maamul daadejin waxa la gaarsiiyay dhinaca adeegyada ay kamid yihiin biyaha waxbarashada iyo caafimaadka wixii laga kari karayaba waa laga gaarsiiyay runtii dhinaca kalena markaad la sheekaysato reer Garadag waxay kaaga waramayaan isbedelka dhinaca horumarka ee ku yimid degmada isbedelay wax fara badan oo oran karo ilaa 60% bay qiimeynayaan ugu degan yahay sida waxbarashada hadii biidankeeda iyo dhiska hay'adaha dhaqaalaha dalka baayac mustarka dhinacii loo eego dhinacii kasta loo eego waxqabadkan oo iskuulkan ka dhisan gowsa weyne hadda aan joogno kow rugta bilayska rugta caafimaadka guryaha aqeybada leh waaweyn oo noo dhisay noo qabtay waxaan soo dhaweynaynaa wax badan baa isbedelay ma ilahayn dee meel caafimaad guri yar baa dadka lagu daweyn jiray ma ilahayn rug bilays guri nabadgelyo ma ilahayn
iskuul laba qoloo yara bay lahayd wax baraha bulshada ah tuulada fadhigaab oo yana ay maamusho Garadag ayaa laga dhisay dugsi hoose dhexe saldhig boolis iyo waliba aqalkii dadweynaha sidoo kale magaalada Gowsa Weyne oo iyadana Garadag hoosagta ayaa laga hirgeliyay dugsi hoose dhexe xarun caafimaad iyo saldhig boolis waxa kale oo tuulooyinka Balanbaal Ceelcadde Sincarre iyo Faraguul dhammaantood si isku mid ah looga dhisay dugsiye waxbarasho oo wax weyn ka taray aqoontii bulshada deegaanka oo aan hore u haysan dugsiye waxbarasho degmada Garadag waxa ku barakacay ku dhawaad 12,000 oo ah qoysaskii abaaruhu saameeyeen maayarka degmada ayaa noo sheegay in dadkii abaaruhu barakaciyeen ay dawladda oo la kaashanaysa hay'adaha deeq bixiyayaasha ahi ku quudiyaan bishii lacag badan 300 oo kun oo dollar dad ilaa 12,000 oo qoys gaaraya ayay noqonayaan marka la eego dhaqaalaha ku baxana waa dhaqaale aad u badan oo dhinacii masaariifta uu gelaya celcelisaan markaan isu geynina lacag ilaa 360,000 oo dollar ayaa bishiiba soo gala dadka ay dhiibiyeen deegaamada kala duwan ee deegaanka Garadag degan dadkaas oo dhan waxa weeye lacagtaas waxa weeye wax ku dibartaan noloshoodii waxaan aad uga mahad celinaynaa hay'adaha waxaan kula aad uga mahad celinaynaa xukuumadda hogaamiyaha ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaayo Celaf Weyn 90 kilomitir ayay dhacdaa koonfur galbeed magaalada Ceerigaabo waxaana hoos yimaada 45 tuulo hilaadii 1936 ayaa la tilmaamaa in la aasaasay taariikh dheer ayay leedahay waxaana xarun u ahaan jirtay ciidamada Ingiriiska ee la dagaalamayay daraawiishta tan iyo waagaas Celaf Weyn xukuumadihii kala dambeeyay kama helin wax qabad lama jeeran karo hase yeeshee curashada gugi isbedelka ee xukuumadda madaxweyne Silaayo ee sanadii 2010 ku timi rabitaanka shacabka waxay la kowsatay maalmo cusub waxaana Celaf Weyn cagta saartay marinkii wax qabadka Celaf Weyn waxay yeelatay xarun dawlad hoose oo qalabaysan gurigii martida oo u diyaarsan hab casri oo loogu talagalay inay degaan wufuudda dawladda iyo martida degmadu dhismaha maxkamadda degmada dugsi hoose dhexe dhaambiyood weyn saldhig boolis dugsi sare cusbitaalkii guud ee degmadaasi oo ballaarin dibdhis iyo casriyeyn lagu sameeyay si taasi la mid ah isagii MCH-kii degmadaasi waliba gaadhigii ambalaaska waxa la kordhiyay dugsigii sare oo marka yaraa waxa lagu kordhiyay ilaa 6 class baa lagu kordhiyay waa halka karsan korka ardada iskuulada soo galasanaya ka fahmaysid dugsi dhexe oo isna waa la balaariyay oo saddexe waxa marka halka ka muuqata korkaca ardada soo galaysa waxbarashada iyo dadka jaaniska waxbarashada ka faa'iideysanaya bay halka ka fahmay waxa la sameeyay xarun weyn xarun dawladda hoose oo ballaaran waxa la sameeyay isbitaalka degmada oo koobna ayaa diir lagu wareejiyay waana lagu kordhiyay hulul waa magaalo degmo ka farcantay Celaf Weyn mashaariic horumarineed oo kala duwan ayaana ka qabsoomay waxaana xukuumaddu halkaas ka hirgelisay riigbiyood weyn oo leh solar iyo 2 mashiin kaasoo bulshada deegaanadaasi u saamaxay inay kaga baxaan baahidii biyo yaraanta kalena soo dabaashay biyo la'aantii iyo abaarihii culayskooda lahaa ee dalka soo maray deegaankani intii madaxweynaha talada haya Axmed Maxamed Silaayo uu xilka qabtay iyo markii hore waxa u dhaxeeya فرق وين أو عدي وهاجا كون ولاد أمام مرتي جران كرتو سبدل كسره وايو أديك أساسي جاه أرميها بالشدة وحلا على وح أي لحيد مشت سكول كهذا هول تاجن هاي وأفرف الصلعة والدولة محمد سياد بره أو شيء قال أيام ماشى قرا أديك قرا أنت سنبا أديك الأوران كرو أنت ذكرت ما أنت إلهي بكم هذا الحمد لله رب العالمين وحده لقوم هذا حق عافمات كمر كان كهالله MCH كبير هذا هاي سفي عنو شقية ديجان كونه كوف اللاضي وحلو سو كردية أنتي أباروه أيدعين تيم وريجة أو دخاتير أو أنت ديجان كانوا حكمته أو دن مرة ريجي بيها وعين صامر هو اللي سميجي سلك بريس ولا سميجي حرونتي دولة هوسة oo lagu talagalay in dawladda hoose degmada hulul ay ka shaqeyso waa la sameeyay deegaankan degmada Ceelafeen hoos yimaada ama daraweyne ha noqoto ama hulul ha noqoto ama tulooyin kale ku xir ha noqotee waxa isbedel weyn oo ballaaran baa 7 sano ka muuqda
darar weyne si taasi lamida waa magaalo degmo kale oo ballaadhan waxaana ka taabagalay waxqabad muuqda intii ay xukuumaddu jirtay dhinaca waxbarashada dugsi sare iyo mid hoose dhexe oo qalabaysan ayaa darar weyne yeelatay gurigii dadweynaha iyo riigbiyood oo manihii ka saaray deegaanadaasi kaasoo ay dad iyo xoolaba maanta manaafacadsadaan 2 galaas oo iskuul hoose dhexe ah oo laga dhisay degmada 2015 bishii saddexaad waxaa kale oo laga hirgeliyay degmada ama laga dhisay 2 galaas oo iskuul dugsi sare ah ama secondary sanadkii 2015 bishii 12aad waxaa kale oo degmada laga dhisay guri martiyeed oo ka kooban hall lagu shiro iyo qol dambe oo hurdo ah waxa number 4 waxa kale oo degmada laga dhisay riigii ay ka cabayeen xooluhu 2015 bishii 6aad riigaasna waa laga hirgeliyay number 5 waxa degmada laga dhisay oo laga hirgeliyay 2 dhaam oo ah kuwa biyaha oo ay ka cabaan xoolaha iyo dadkuba marka loo eego xukuumadii hore ka soo talin jiray jamhuuriyadda Soomaaliland waa xukuumadii ugu waxqabadka badnayd ee ugu tayada badnayd Ahmed Maxamed Maxamuud waxqabashadiisii waanu ku badhaan oo ku barigadaan seero ku barwaaqaysan horena xaga afmaano arag hore hay'ado maano arag iskuul wax noo dhisa maano arag wax xaga afnoo sameeyo maano arag wax hay'ado noo keena maano arag Ahmed ka hor dhabar mama god waraabe masle siiga dheer beerweeso gal iyo qac ceeldibir laastoomar ceelmidigaan kalshiikh xamilka garuble iyo bixin dhammaan waa tuulooyin ku abtirsada degmada Celaf Weyn waxaana si isku mid ah uga hirgalay dhismayaasha dugsiyo hoose dhexe oo qalabaysan iyo waliba guriyihii dadweynaha Celaf Weyn iyo deegaanadeedu waxay noqonayaan kuwa helay waxqabad ku filan muddadii ay xukuumaddu jirtay celcelis ahaan dugsiyada waxbarasho hoose iyo dhexe waxay noqonayaan 33 iskuul kuwaasoo degmada iyo tuulooyinkeedaba ka saaray baahidii dhinaca waxbarashada taasoo muujinaysa dadaalka madaxweynaha iyo xukuumaddiisuba u galeen sidii qarankan ay u dhaxli lahaayeen jiil magaalo miyi iyo tuulaba aqoonta ka dhisan una diyaarsan hogaaminta mustaqbalka dhow celceliska wadarta guud ee dugsiyada hoose iyo dhexe ee gobolka Sanaag laga dhisay waxay noqonayaan 70 dugsi halka 82 kalena lagu sameeyay dayactir iyo waliba dhismayaal fasallo lagu kordhiyay dugsiyada sare 8 ayaa laga dhisay Sanaag waxaana la dayactiray 11 dugsi dhinaca caafimaadka Sanaag waxa yeelatay 11 ambalaas 3 MCH hal isbitaal TB waxaana sidoo kale dayactir iyo dib u dhis lagu sameeyay isbitaalka guud ee gobolka dhinaca biyaha gobolka 80 ceelasha dhaadheer iyo kuwa gaagaaban ayaa laga sameeyay Sanaag halka barkadaha iyo balliyadana laga sameeyay 102 balli iyo barkadood Sanaag sidoo kale 28 tuulo ayaa laga sameeyay biyo-gelin xaafad halbeega lagu cabiro horumarka marka la isku jaangooyo wadarta tirooyinka boqolleyda waxay ka noqonaysaa 85% in xukuumaddu dabooshay baahiyihii waxqabad ee gobolkaasi وحوالها المدة قرقنا وقامنايي وماملكيgu ka hirgeliyay gobolada iyo degmooyinka dalka horumarka ballaaran iyo mashaariicda kala duwan aadindina ku aragtaan waxqabadkan ay ku talaabsatay xukuumadda aan galwadaanka ka ahay waxay ka tarjumaysaa fulinta ballanqaadyada xisbiga kulmiye la galay guud ahaan bulshooyinka Soomaaliland xilligii ololaha doorashooyinka madaxtooyada 2010 sidaa darteed waxaan mahad oo dhan iska leh Allaahna weyn inuu suurtageliyay
galadaha iyo guulaha aan la soo koobi karin. mar labaad waxaan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan mas-uuliintii iga kaalmaysay gudashada xilka la ii doortay isla markaana ummadda ugu adeegtay sida daacadnimada iyo daljacaylka leh. si gaara waxaan u bogaadinayaa hay-adaha samafalka, kuwa qaramada midoobay iyo dalalka deeqbixiyayaasha aynu saaxiibka nahay ee naga taageeray qorshihii horumarinta qarankan ee xukuumadda culmiye ugu dejisay ama u qoondaysay qarankan. ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa cid kastoo gacan ka geysatay mashaariicdan u xambaarsan yihiin filimkan maqalka iyo muuqaalka ah.